السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى صاحب بيال ومركلي مقال عصب مقال كان الماتحن كال دونا ما نكشرح دونا فرسموين لياب لي او لغسو كردي واتساب سين وذوقنا هاي مرول بو واتساب لابريد جري وحا لغسو كرديا فيوتشرز آدو مهمة هذا بابريد كي ودن بي واتساب فرسموين كعجبين دونا او لغسو كرديا مقال كان كولو داك دونا هذا وغرين انو دا قلنا مقالك marka ugu horeysa hadaba intaan wax kala sameyn first whatsapp-kaaga ayaad update gareysan doontaa oo haddii aan whatsapp-kaaga ku update gareysnayn dhammaanba dee featureskan aan halkani ka sheegi doono ma arki doontid. marka first whatsapp aad play store ka search gareyn doontaa kadib update ayaad odhan doontaa. markaad soo update gareysato aad update-kii ugu dambeeyay haysatid open aad odhan doontaa amba waad soo furan doontaa. haddaba markaad soo furato farsamada ugu horeysa ee whatsapp lagu soo kordhiyaya waxay tahay marka hore sayn wadoogeyn haddaynu u baahannahay inaynu sticker samayno stickeradan caadigeeda whatsapp lasku dirdiro waxay noqonaysaa inaynu application la soo degno oo aynu play store kala soo degno oo aynu application-ka kusoo samayno. imika sticker aad iyo aad u cajiiba ayaad awood u leedahay inaad ku dhex samaysato whatsapp-kaaga gudihiisa. kaliya waxaad soo furan doontaa un qof yani contactskaaga ka mid a meeshan emoji-ga baad tagi doontaa. emoji-ga markaad tagto qaybta yani waxaad ka tagi doontaa stickerka ama calaamada stickerska de already de meeshan waad garananaa oo stickeradii hore favorite-ka gashanay ayay noogu jiraa. meeshan waxaad ka arkaysaa option cusub ay ku qoran tahay create. meeshan waxaad awood uga leedahay inaad ka samaysato sticker. laba option ay ku siinayaa oo use photo yani sawir gallery-geena noogu jira inaynu sticker ka dhigano iyo inaynu AI isticmaalno. labadaba waynu isticmaali doonaa. marka horeysa mid gallery-geena noogu jira baynu isticmaali doonaa. use photo markaad tiraahdo sawirkaad u baahan tahay baad soo qaadan doontaa si automatically adigoon taaban adigoon wax ka jarin. yani marka kale aad application isticmaalaysa shaquu kaaga baahnaa balse qaab cajiib ayuu intuu background-ka ka jaro sticker keliya kugu reebi doona. markuu stickerka kugu soo reebo meeshan waxaad awood uga leedahay de inaad text ku dul darto magaca ama qoraal ku qorto soo kala de waxyaaba waxan kale muhiim ah dad emoji wax si raacinayso waad raacin kartaa. markaad saa soo dhamaysato imika isagoo sidana de sticker uu kaaga dhigi karaa send baad odhan kartaa. sidoo kale isagoo background-ka ka jaran de markuuna qurux badan yahay waana markuu background-ka ka jaran yahay. shaqadii ayuu qaab yar oo fudud kugu sameeyey kaliya send baad odhan doontaa. saarkaasana de sidaas baynu ku samaysanay whatsapp sticker cajiiba. sidoo kale option-ka labaad ee sagnaa inaynu isticmaalno AI ah create. markaad tiraahdo generate with AI baad odhan doontaa. meeshan kaliya waxaad ku qori doontaa sawirka aad doonaysid yani qaabkuu noqonayo. tusaale ahaan man walking aynu ku qoraynaa ama talking yani wax kastood ku qorto sawir aan hore loo isticmaalin oo AI oo imikadan lagu sameynayo ayuu ku generate gareyn doonaa. imika wakaa sawirada ay noo soo saaray. haddaynu man stadium ku qorno sawiro wax dhigasho waxaas noo saaraya kaliya qoraalkaad u baahan tahay stickerka aad doonaysaa inuu noqdo baad meeshan ku qori doontaa si toosan isaga ayaa kugu soo saari doona. kaliya send baad odhan doontaa. qaabka yare fudud ayaa de adigoo AI isticmaalaya iyo adigoo sawir gallery-ga kugu jira isticmaalaya ba sticker ugu samayn kartaa. option-kan aad iyo aad muhiimka ayaa lagu soo kordhiyey. soo kale option-ka kale lagu soo kordhiyey qaybtan stickerska ayaa waxay tahay marka hore yani imika sticker meeshan awood baad uga leedahay inaad stickerka allaaliya stickerka doontid aad search garayso oo yani stickero iska samaysan oo ayaa jira oo automatically u samaysan oo haddaad search garayso bartankaaga soo baxaya. marka hore qaybta emojiska kaliya un baynu wax search gareyn karanay. imika giftiska iyo soo kale stickerskaba awood baad u leedahay inaad waxa allaaliyo waxaad rabto aad search garayso. sidoo kale qaybta muhiimka ee chatska lagu soo kordhiyay waxay tahay waxaad awood u leedahay inaad dirto cod one voice time yani hal mar oo kaliya la dhageysan karo. sidaynu wadoogeyn marka hore waxaa lasoo kordhiyey in sawirada iyo fiidiyoyada aynu qofka hal mar u diri karno halkaa markuu furo aanu mar labaad furi doonin. imika waxaa lagu soo kordhiyey codka codimka haddaad duubto meesha yare one ay ku qoran tahay ama calaamadan baad ku dhufan doontaa send baad odhan. qaabkaana de yani waxaad awood ugu leedahay ama qofkaasi hal mar unbuu codkaasi dhageysan doonaa. sidoo kale qaybtan chatska intaynaan ka guda bixin sidaynu wadoogeyn marka hore waxaa lagu soo kordhiyey inaynu bingarayn karno message-ka oo marka allaaliya markaynu doono de yani fariimaha uu qofka kale arki doono aadna aad arki doonto oo yani bin halkaas sarayna saarmi doono. markaad doonayso inaad fariinta dul tagto kaliya meesha binka unaad ku dhufan karto.
binkaas wuxuu noo ahaa all time haddii aad hal mar bin garayso ama group ku jira ama qof caadiba de chatskiina bin garayo markaad bin garayso يعني كمو قادم دونين إلا أضو أتكقاضو بل سيمك وحا لو سمي وقتي ومركا دون سينو كأنا يعني chat بين قريسو استحير اللي بعوضة تكتو بين أتكون فتو واحد كاركي دونتها 7 days 24 hours يسودون days صدح ذا أوبشن أيضا ليض هاي صدح ذا أوبشن مركي دماذان أبوتوماتيكلي يعني بين الكاز تيكركو أما بين الكاجات كاد بين قريسي أبوتوماتيكلي وسكي قادم دونا أو أم بين أي نقون دونا انت كوريسا دا دون سيناد أم بين تراهدو وتخدو لفن كليا أم بين مباد قابكي عاديقا هايد وأوراني sidoo kale farsamada kale aad iyo aad ku muhiimka ah lagu soo kordhiyay WhatsApp ay waxay tahay seen wadoogeyn marka hore waxa lagu soo kordhiyay in yani sawirada aynu HD u diri karno iyo fiidiyoyada bad qaab quality leh oo HD ah marka mar walba waxa qasab inagu ahayd ama imkabada sidan qasab inagu ah markaynu sawir ama fiidiyo dirayno in yani meesha HD ga aynu taabano imka hadaynu soo furano gallerygeena inuu doonano imkan inaynu u dirno sawir qof ama fiidiyo waxa qasab inagu ah qaabka imka markuu soo furmo waxa qasab inagu ah inaynu meesha HD taabano oo hadeena inagu HD qaabka uga dhigin kama dhigmi doono video walba ama sawir walba inuu dirisna lahayn inuu HD nalaahna mooyee deesagu advance kaliya HD uma noqon doono hadda waxa lagu soo kordhiyay option awood ku siinaya in yani si advance kaliya oo HD meeshaasi ku ahaato oo sawirada iyo videoda qaar baan HD noqonin waa maaha sawir kasta ama video walba HD noqonaya si advance kaliya waa diri doontaa oo HD ku noqon doona si aad option ka furato saddex dhibcood geeska midiga loo batigi doontaa settings meesha ku qoran tahay baad ka tagi storage and data ayaad ka sii tagi waxaad furan doontaa meesha ku qoran tahay media upload quality sidoo arkaysan bad standard bino yahay HD quality baad ka dooran safe baad oran si advance kaliya mar walba sawir walba iyo video walba diraso isaga ay saari doona oo yani uma baahan doontid mar dambe inaad saarto HD quality sidoo kale qaybta settings waxa lagu soo kordhiyay saddex dhibcood marka tagtay settings tagto option aad u muhiim ah oo app updateska sidoo wadoogeyn de markasta oo doonayno in WhatsApp keena update gareysano Play Store ka weyn taganay oo waad ka soo update gareysan karasay balse haddii options ka furato automatic update ka taasar waa marka wifi isticmaalayso data marka isticmaalaysan tan labaad haddii labada option furato mar walba de si automatically iska kugu update gareyn doona soo kale hadii aad baahan tahay in updateska ku soo ogeysiyo mar walba la update gareeyo qaybtani hoose WhatsApp update available ka ayaad furan doontaa saddexda option muhiimka ayagana qaybta updateska lagu soo kordhiyay sidoo kale hadii aad u baahan tahay application meta inaad soo furato oo yani meta Facebook ama Instagram adigoo WhatsApp ku guda jira dad oo sinad kuwa soo furato kaliya saddex dhibcood baad tagi doontaa inta adigoo yani application ka bixin oo ku guda jira settings baad tagaysaa meeshan ugu hooseyso waxaad ka arkaysaa meel ku qoran tahay open Instagram iyo open Facebook labadaba awood baad uga leedahay oo ka doorato si toos ah adigoo application-kii ka gudo bixin oo ku jira ayuun baad soo furan doontaa sidoo kale qaybta statuska waxa lagu soo kordhiyay yani marka hore sidii wadoogeyn statuska waxaad kaliya soo dhigi karaysay muuqaal soconaya 30 sekin imika 60 sekin ama hal mir ayaa laga dhigay oo hadaynu tagna qaybta statuska oo videoga aad u baahan tahay aad soo qaadato hadaynu tagna qaybta statuska oo videoga aad u baahan tahay aad soo qaadato saad meeshan ka arkasaan hal mir ayuu nasinayaa oo waxa la kordhiyay xaddigii ama limitkii WhatsApp statuska aad soo dhigi karaysay muuqaal sidoo kale WhatsApp statuska markaan doonayno in wax soo dhigno waxa lagu soo kordhiyay option markii hore aynu keenay kaliya qaybta statuska markaan tagno ayaa meeshan lagu soo kordhiyay meeshan post walba soo dhigayso waxaad wax ka bedeli kartaa yani dadka aad doonaysid inay arkaan statuska guud yani postiga kaliya maaha waa statuska guud baa lagu soo durkiyay oo meeshan lagu soo dhigay oo imka may contacts accept may contacts intaaba awood baad uga leedahay adigoo ku guda jira postigaagii oo aan tagin qaybtii statuska sare dhowrka farsamo ayaa lagu soo kordhiyay WhatsApp update-kii ugu dambeeyay haddaba farsamadee ayaad adigu jeclaysatay amba farsamadee ayaad isleedahay waa farsamada ugu muhiimsan update-kan muuqaalkeena ee commentation ku soo gudbin doona inaad aad iyo aad ugu faa'iideysanaya filaya fadlan hadii tahay baqshadaadii koowaad subscribe star videogana like star aad iyo aad baad mahadsantahay